بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى سoo dhawaada waxaad kusoo dhawaataan channelkeeni Vision Technology. maanta waxaan bilaabi doonaa free course baan bilaabi doonaa. Course-kaasoo ku saabsanaan doona computer accounting. waxaan dhigan doonaa application-ka ama software-ka QuickBooks Desktop la yidhaahdo. Programkani muxuu ahaa program aad u ballaaran, waxyaabo badanna ka anfici doona, runtiina lacago badan lagu bixiyo barashadiisa. meelo badan oo shaqooyin fiican laga helo ay kaaga xidhmi karaan. markaa waxyaabuu ku fudaydinaya waxaa ka mid ah muxuu shaqadii company-ga aad u shaqaynayso ama meel dad ka shaqaynaysa waxay qabanaysay ayuu meel isku kaa keenaya oo ku wada ururinaya, adigoon u baahnayn inaad accounting-kii cilmi u yeelato. keliya la doonayo un computer-ka inaad muxuu ahaa basic information ka haysato ama basic knowledge. markaa cashirkan aynu bilaabi doonaa, intanaynu qaybin doonaa markaa chapter 1 chapter 2 ilaa chapter 6 intaasaynu qaybin doonaa. markaa maanta waxaynu bilaabi doonaa chapter 1 keenii oo ah how to install. si horta marka hore aynu computer-ka ugu install garayn karnaa ayaynu bilaabi doonaa maanta. unitskeena chapterkeena kooda noqon doonaa. markaa aynu bilaawno. waxaad iman doontaa downloadskan kasoo download garayso, waa kan folderkan aad soo geli doontaa. markaa intaasaa kugu jira instruction baa la socda. instructionkaad furi, deedna markaad furto waa kuwan muxuu ku yiri waxaad install garaysaa muxuu ahaa setupka lagu siiyey. deedna setupka la siiyey halkan ku dhex jira waa kan. setupka double click siinaysaa, waa kan double click baad markaa haddana siin. deedna intuu soo kacaya jira sugi xoogaa inta bilowga waa yara culays yar buu sameynayaa, laakiin hadhow inuu ka baxa laga yaabo hadduu computerkaagu Core i5 iyo wixii ka sarreeya uu yahay, wax culays ku dareemi maysid. deedna marka intaas inoo soo kacdo waxaynu odhanaynaa markaa internet-kaad ka xidhaysaa maadaama uu crack yahay oo aanu ahayn muxuu ahaa mid legal ah oo legalkiisu waa qaali, lacag badan ilaa lacag $500 buu ku yaallaa online-ka. markaas aynu muxuu ahaa meel yaro dhow uga wareegno. internet-kaad ka xidho muxuu ahaa waynu install garaynaynaa. installation markaad samayso license-kii iyo product-kii xaggan inoo yaalaa. markaa license-kiisii kama warwaraysid, product-na markiina waa kan. deedna waa kan noo soo kacay ku dhufano, deedna yes badaran, deedna warshashta kusoo saaro next. aad yara sugi markaa intuu akhriyayo. xoogaa markaa product numberkiisii waa kan, license numberkiisina waa kan, kama warwaraysid. kalena license-kaad gelinaysaa hagana product numberka. deedna stepskan dambe ee noo soo socda ayaynu raaci doonaa. markaa siday u kala horeeyaan ayaynu wada raaci doonaa, waad la socon doontaa insha allah. kaa u dhameeyey hadda wuxuu noo soo kicin doonaa installationkii. marka hore extraction wax la yidhaha uu sameynayay programku furfurayo computerka ku dhex kala furayay, laakiin imika installationkii realka ah baa bilaabmi doona. xoogaa minute way qaadanaysaa 10 minutes 15 minutes. waxaa wada yar samraysaa intaa hore, waa marka hore inta dambe si smooth kugu carari doonaa programku. marka halkaas soo gaadho welcome to QuickBooks markuu dhaado kusoo dhawow complete your QuickBooks installation accept and continue. marka license agreement-kii baa ku jira,
accept and continue baad oran marka waa kan product numberkan idin sheegay iyo license-kii automatic buu soo qabtay aniga laakiin adoo adigoo halkaa uu ku yaalo muxuu ahaa notepad-ka yari aad ku koobiyeen deedna halkaa isaga hyphen-ka automatic u raacinaya adoo hyphen raacin maysid deedna product numberkaad gelin intaa markaad geliso next baad oranaysaa options kalaad markaa kala dooranaysaa I will be using QuickBooks Desktop on this computer. I will be using QuickBooks on this computer and I will be storing your file here so I can be shared or network. Kaa kuwaad ku daysanaa marka I will not be using QuickBooks. Kaa horeeya I will be using QuickBooks on this computer. Kan ma ku isticmaalaya ay ahaanaya database-kii wixii oo dhanba. Deedna next baad oranaysaa. Deedna wuxuu kuu sheegayaa muxuu ahaa halkuu dhiganayo faylasha siida oo muxuu ahaa 86-ka muxuu ahaa Intuit QuickBooks-ka hadhow hagaasaad ka heli doontaa dad fayl uga baahato u save gareeyay waa kuwan ready to install license-kaaga waa intaa product-gaaguna waa intaa deedna muxuu ahaa install baad oranaysaa xoogaa baad yara sugi markaa intuu installation-ka wadayo xoogay waqti yar buu qaadanayaa waad yar samraysaa yar koobshaad ka soo qaadanaysaa waad iska dul fadhiyaysaa computerka waa first day-ga waa maanta installation-ka wixii dambe system-ku u shaqayn doonaa markaa waad yar samraysaa yar xogaa yar xayeysiisa oo kamid ah waxyaaba ku qabanayo ayaa waxaa ku qoran bank transaction-kii shaqooyinkii ama lacagii banka dhigaysay iyo kasoo saaraysay dad bankaa ku xidho si fiican buu kugu categorize kugu sameynayaa receive expenses-kii ayuu ku sameynayaa kharashaadkii kaa baxay internet waxyaaba badan oo aynaan iyanagu u baahanayn ayuu leeyahay customize user permission limiting access to specific customers vendors and data haddii company-gaad ka shaqeynaysaa uu company weyn yahay ama company-gan aad samaysatay saleska gaar baad uga xidhaysaa kii iibka sameynayay kii muxuu ahaa dalabaad ka sameynayay company-ga u tagayay odhanayay intaasaan kaaga baahannahay gaar baad ugu xidhaysaa isagana password baad u samaynaysaa kii hayay muxuu ahaa bakhaarka ee alaabta tirsanayay marka la keenana ee diiwaan gashanayay isagana gaar baad ugu sameyn shaqooyinkii baad kala saaraysaa that means qofna qofka kale shaqadiisa ma dhex gelayo qof walba shaqadiisii passwordkiisa iyo username-kiisa u gelayaa intiisa ma dhaafinayo programku marka inoo dhameeyey installation complete of QuickBooks has been successfully installed deedna close baan siinaynaa waxay noo haraya muxuu ahaa imika no bayn odhanaynaa hadhow bayn reboot ku samayn doonaa deedna waxaan tegi doonaa muxuu ahaa tallaabada afraad waxaynu muxuu ahaa furi doonaa deedna faylasha ku dhex jira zipkaasaynu furi doonaa waxaynu muxuu ahaa waynu qaadi doonaa marka stepin back odhan deedna crack fixkii waa kuwan labadaa fayl ee hagaasi haggaa yaalla ayaynu koobiyeyni koobi baan siin doonaa deedna kaasaan koobiyeyn naga shift hayna kaasaan koobiyeyn kana koobi baan siin deedna control plus c bayn taaban ama right click waxaan isticmaalaya Windows 11 haddaad isticmaalayso koobi baad tegi deedna waxaad tegi doontaa folderkii uu ku install garaysnaa siida tegaysaa deedna hagaad ka tegi waxaa tusaale ahaan deedna hagaad ka raadin doontaa muxuu ahaa Intuit wakaa folderka double click baad siini deedna QuickBooks Enterprise Solution kaas raad tegi sii dhexgeli
deedna haganaad control aad right click siiso aad paste odhan doonto ku paste garee deedna wuxuu ku odhanayaa faylashan way ku jiraan meesha markaa replace baad odhanaysaa continue deedna continue kii labaad haddana saasuu ku dhameeyey deedna waa soo xidhi programkii baan soo furi marka programkeenii waxaa quickbook ahaa aan soo furi adoo ku qoraya searchka quickbook